dagaal dhex maray xabashidii iyo boqortooyadii ximyar ee ka talin jirtay dalka Yemen ayaa ku soo idlaaday in xabashidu ay ku gacan sarreeyaan dagaalkaas markii ay qabsadeen xukunkii Yemen. boqorkii boqortooyadii Aksum ayaa u magacaabay nin la oran jiray Abraha al-Ashram inuu noqdo xaakimka Yemen u jooga boqorka Aksum. xilligaas waxay ahayd boqortooyo ballaaran oo ka jirtay dhul ku teedsanaa waqooyiga Itoobiya iyo Eritrea, waxayna ahayd boqortooyo xooggan oo awood dhaqaale iyo ciidanba ku lahayd mandiqadda. waxaa jirtay xilligaas in carabtu ay dhaqan u lahaayeen sannad kasta inay u xaj tagaan magaalada Maka si ay ugu soo xajiyaan Kacbada, wuxuuna ahaa dhaqan soo jireen ah oo ay jiilba jiil iska dhexli jireen. dadkan xajka aadaya waxaa ku jiray Yemeniyiin badan. Abraha ayaa weydiiyey saraakiishii meesha ay dadkan oo dhan xilligan u socdaalayaan oo ay u wada socdaan. markii looga sheekeeyey inay Maka sannad kasta u xaj tagaan, waxaa maskaxdiisa ku soo dhacday fikrad beddeli doonta xukunkiisii. wuxuu ku fekeray, maxaan u samayn waayey kiniisad ay sannad kasta dadku yimaadaan halkii ay ka aadi lahaayeen Maka. la taliyayaashiisii ayuu u bandhigay fikirkii, wayna soo dhoweeyeen, waxayna u sheegeen inuu maangeli yahay. Abraha ayaa go'aan ku qaatay inuu fuliyo qorshaha hirgelinta mashruucan. wuxuu isugu yeeray injineeradii xilligaas ugu caansanaa mandiqadda, waxaana bilowday mashruuca dhisidda kiniisaddan. dhaqaale badan iyo dadaal ayuu ku bixiyey Abraha kiniisaddiisan cusub, wuxuuna u bixiyey qalliis. way dhammaatay dhisiddeedii kadibna wuxuu faray saraakiishii iyo ciidankiisiiba inay dadka ugu yeeraan u soo xajtegidda kiniisaddan. carabtii markii loo sheegay kiniisaddan cusub ee aadka u weyn ee la rabo inay beddesho Kacbada, waxay ku jawaabeen jees iyo inayba maad ka dhigtaan oo ay dhahaan, ma waxaan ka tegaynaa gurigii aabbaheen Ibraahim oo waxaan xaj u aadnaa kiniisad u dhistay Abraha. intaasi kuma joogsan, balse taariikhyahanada ayaa sheegay in mid ka mid ah carabtii uu habeen si dhumaalaysi ah u soo galay kiniisaddan, kadibna u beddelay suuli oo uu ku dhex saxarooday. intaasi kuma joogsan, balse saxaradan ayuu darbigii kiniisadda ka buuxiyey. subaxii markii ficilkan lagu wargeliyey Abraha aad ayuu u carooday, wuxuuna amray in la diyaariyo ciidan si gebi ahaana u burburiya Kacbada. markii la diyaariyey ciidankii, Abraha ayaa u soo jeestay dhanka Kacbada isaga oo horkacaya kumanaan ciidan ah oo ku qalabaysan saanad aad u xooggan, gaadiidna uu u yahay maroodiyayaal. carabta waxay ku ahayd arrin ugub ah in maroodi lagu dagaalamo, oo waxay sida caadiga ah adeegsan jireen fardo oo keliya. Abraha intii uu u soo socday Maka wuxuu dhexda ku soo maray qabaa'il badan oo carbeed oo deegaanna ku lahaa inta u dhexaysa Sanca iyo Maka. qabiil kasta oo ay yimaadaan deegaankiisa, ciidamadiisa ayuu ku fasaxayey si ay u bilileeqaystaan wax kasta oo ay haystaan, xoolo iyo hantiba, kadibna ay sahay uga dhigtaan. wuxuu soo gaaray deegaan u dhow Maka, kadibna wuxuu amray inay halkan ku nastaan. ciidankii qayb ka mid ah ayuu u diray si ay geelii iyo xoolihii joogay bannaanka Maka ay u soo bilileeqaystaan. reer Maka tala ayaa ku caddaatay. marka laga yimaado ciidanka xooggan ee uu horkacayo Abraha, haddana waxaaba cabsi ku beeray maroodiyada uu ninkani gaadiid ahaanta u wato. xilligaas waxaa hoggaaminayay reer Maka cabdimudallib binu haashim oo ahaa awoowaha nebi maxamed, naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee. cabdimudallib ayaa u yimid Abraha. markii uu Abraha arkay cabdimudallib wuu ka haybaystay oo aad ayuu u soo dhoweeyey. kadibna wuxuu ku yidhi, maxaad rabtay? cabdimudallib ayaa ku yidhi, ciidankaagu waxay iga qaateen 200 oo geel ah, geelayga ii soo celiya. Abraha ayaa ku yidhi, markii ugu horraysay ee ay ishaydu ku qabatay, waxaad iila ekaatay nin haybad leh, laakiin sidaan filayey maadan noqon. cabdimudallib ayaa yidhi, sabab? wuxuu ugu jawaabay, waxaan u imid si aan u burburiyo gurigan idinka iyo awoowayaashiinba muqaddaska idin ah. halkii aad igala hadli lahayd ayaad igala hadlaysaa 200 oo geel ah. cabdimudallib ayaa ku yidhi, gurigan ilaah ilaashanaya ayuu leeyahay, laakiin geela rabbigiisu waa aniga.